الحمد لله رب العالمين. كوزاب سنة مانتا شركة جنجرايد ورر runtii been abuur oo baryahan warbaahinta afka Soomaaliya ku hadashay aad u wanaagsan kuna aadan imaantika ciidamada Itoobiya oo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika halkan ay ku yimaadeen runtii waxaan marnay ciidanka Itoobiya ay ka mid yihiin ciidamada Midowga Afrika guud ahaan Soomaaliya ka howlgala waxay ku yimaadeen sifa sharci mandate African Union AMISOM iyo IGAD intaba maartay ay og yihiin gobollo badan oo Soomaaliya joogan ogtihiin waxay joogaan gobollada dhexe waxay joogaan Hiiraan waxay joogaan Baaya Bakool waxay joogaan Gedo hadda oo ugu dambeysay xeebaha gobolka Jubbada Hoose degmadiisa magaalada Kismaayo marka waxay yimaadeen waxa weeye in sida ciidamada kale Midowga Afrika ee faraha badan ee runtii ka howlgala Soomaaliya ay u joogaan oo ay rabaan in amniga Soomaaliya qabtaan oo la dagaalamaan cadawga Soomaaliyeed oo ka mid yahay oo ugu horeeyo nimanka la baxay shabaab ee runtii dhibaatada weyn ku haya iyo argagaxa iyo xanuunka faraha badan ummadda Soomaaliyeed marka guud ahaan arrintu waxa weeye waa noocaas waxaa loo dhigay in Midowga Afrika ciidamada ka socda Ethiopia magaalada Kismaayo amnigeeda iyagu ay la wareegeen oo shirka halkan 10ka bisha lagu qabanayo amnigiisa uu sugaya oo ciidamadii Midowga Afrika ee halkan joogay ama noqoto ciidankii AMISOM Kenya iyo kuwa Burundi iyo ciidamadii kale ee Soomaaliyeed ee runtii faraha badan ciidanka Jubbaland oo ka badiyay halkan joogay SNA waxa soo dhantay meesha ka baxeen ayagu inay shaqadii la wareegeen arrintaas marka waa arrin waxba kama jiraan oo been aan weeye magaalada Kismaayo amnigeeda ama Jubbaland waxa ku haya ciidamada Soomaalida ciidanka Jubbaland ayaa gacanta ku haya magaalada Kismaayo amnigeeda ciidamada Midowga Afrika ama AMISOM ee nagala howlgala maasan yihiin waxay nagala shaqeeyaan difaaca guud iyo amniga guud runtii dhulka ayay ka shaqeeyeen laakiin amniga magaalada oo ogtii ma marinaya waxa gacanta ku haya ciidamada Soomaalida hal askariya oo ama maartay ciidamada AMISOM ka tirsan ama ciidanka Ethiopia ka tirsan oo ka howlgala oo ka shaqeeya oo amniga magaalada gacanta ku haya oo booliis ahaan u jooga ma jiro ay ogtii nimankan marinaya guud ahaan dadka Soomaaliya og yihiin waa isku filanay anagu amniga caawinaada guud ee runtii ummadda Soomaaliyeed ay u yeeratay ciidamada Midowga Afrikaanka ah oo ah in aan iska kaashano cadawga runtii ku habsaday mooyeen laakiin wax gooni ah ma jiraan arrintaas marka aan dhihi lahaa waxa laga bixiyay turjumaad xun oo runtii fool xun oo ay u muuqato in runtii dad dana gooniya leh inay siyaasadeynayaan oo ay waxaynayaan Ethiopia waa dawlad aan darisnahay waad ogtiin xuduud dheer baan leenahay runtii waxa ay ku soo galeen si sharciya ay waddan ku soo galeen sida sharciga ay ku shaqeeyaan waxay u joogaan waxa weeyaan waa ogolaanshaha ummadda Soomaaliyeed ku joogaan wax khasab la yiraahdo ay ku yeelan ma jiraan dhulka hadda ay joogaan oo ogtiin laga soo bilaabo ilaa iyo gobollada dhexe ilaa iyo maartay halkan runtii shaqo badan oo culus ayay ka qabteen waxay la mid yihiin ciidamada Djibouti ee jooga maartay Hiiraan ciidanka maartay Uganda waxay la mid yihiin ciidanka Burundi waxay la mid yihiin ciidanka maartay Kenya agooni ayay kaga duwan yihiin ma jiraan agooni kaga duwan yihiin marka cidii marka tafsiir gooni siisaa ayada la rabtaa inay tafsiirkeeda meesha dhigi lahayd ay keento marka intaas runtii yaa rabay inaan sheego oo runtii Brian Media ee uga hadlayay oo aad loo bumbuuninayay waxaan ku celinayaa amniga magaalada Kismaayo runtii aad buu fiican yahay waa la og yahay meel isku haleyn karo weeye Soomaaliya oo dhammaarna halkan la isugu keeno 10ka bisha January waxayna ku timid runtii dadaal dheeriya iyo shaqo badan oo laga qabtay ay ku timid iska yimid maaha ogtiin meelaha Soomaaliya waxay ahaan jirtay oo problem ka badan shaqo weyn baa laga qabtay oo ku saabsan xagga amniga waxa shaqada qabanayeen inta badan waxay ciidamada Soomaaliya halkan joogayaan ka shaqeynayaan waa la ogyahay taas hadda maartay cod hoose lagu sheegay mid cod dheer intaan ku sheegayno wixii halkan ka shaqeynayay waxa ahaayeen amniga sugayay ciidamada Soomaaliya ee dhulka u dhashay ee deegaanka ay ahayd ka shaqeynayay
haddana waxay diyaar u yihiin inay shaqada qabtaan iyaga maalin habeenba runtii usoo jeeda runtii ama ha noqdo shirka hadda la qabanqaabinayo ama kuwa dambe ha noqdo ama horumarka deegaanka ha noqdo annaga ciyaar uma rabno maarata deegaankan amnigiisa cabad in lagu sameeyo ma doonayno waan kasoo shaqeyn doonaa insha allah bidnaa alkariim waana ku faraxsanahay ciidamada midooda afrika ay yimid inay nagala shaqeeyaan amniga guud ee la dagaalanka al-shabaab uu ka mid yahay ee burcadbeedu ay ka mid tahay runtii kuwa isbaarada dhiganay jidkooyinka ay ka mid yihiin si marka laiskugu furo dhulkaas ay imanayaan waan la hawlgelaynaa keligood ma hawlgelayaan insha allah bidnaa alkariim aad iyo aad waa u mahadsantihiin intaan rabay inaan sheego taas ayay ahayd